wuxuu yiri nimcaduna dadka qaar way uga dartaa muuqaalka inta markuu leeyahay gabar maskiina oo ilmo yar xiran ayaanina u kala kacsan tahay oo gaari watay daaqadu u istaagtay ee dawarsi weydiisatay ama inuu wax siiyo ama ay tugsatay saa u taqaanidba muraayadu ka dalacday أصلاً وحبي إسلهين إنه قعنتي سمرنته وما يصير فريست مد أكف ديو سعيبكي سعودي وارياه دواب كان قلع كعورض وسوق هذا من جنتا نلش معنتي ذا والله سالي كجرتا فنان كديدك كبخايا مدخيسا iyo maaragtay sidoo noogu jiray inuu mechanic yahay nolosha macaanteeda waatan daawashada muuqaalkan kadib fadlan ka iloobin subscribe CK Time TV gambaleelkana furo sida aad ula socoto update-ka ama fiidiyoyada aan soo gelin doono hana ka iloobin like share and comment maadsan assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh dhamaantii meel kasta adduunka joogta waa kin CK oo idin leh welcome back to another video isku soo noqod wanaagsan iyo video xiiso leh wajiga idinku hor fadhiyo sida ogtihiin waa CK Time TV bariyahan halkaana u soo guuray xagga waa ka soo guuray waa laaban doonaa balse inta joogo waxaan rabaa wajiyadii halkaas aan ku arki jiray ee quruxda badnaa inaan halkaan ku arko kommentiyada hawada macnaha ahey waxaan isla eegi doonaa ama reaction aan ka bixin doonaa hees cusub uu soo galiyay waqal studio the legend heesta waxaa qaaday alfanaan cabdirasaaq anshax heesta magaceedana waxaa la yiraahdaa nasri noo bilaabo واو ugu horreynba muuqaalka ay heesta ku bilaabatay daroon magaalo dul socda New York ma dul socda macnaha meeshan Afrika meel ka mid ah waaye Kenya miya ma Soomaaliya anyway waxay tahayba daroonka si u socoto ee wax u duubayso inaba caadi ma muuqaalka wasaafi waa dhaafay hasaafi macnaha waqal saafi waa abu inaba caadi ma ha u maleynina in si gooniya aan waqal saaxiib ula ahay balse always marka reaction ka bixinayo waa dhaxgalaa macnaha waa dhaxgalaa gudaha u galaa videoga indhahayga idinkeeda lama joogaan afkayga idin la joogaan balse muuqaalka caadi ah u dhaxgalaani hadda waxaan arkay indhahayga qabanayeen aad u qurux badnaayeen arayada heestan waxa iska leh tala same muuqaalkii hore ama heestii hore reaction ka bixinaynayna waxaan u maleynayaa inuu isaga lahaa abwaankan waa kacsan yahay horumar wacan brother laxanka waxa saaray Cabdi Fataax Mukhtaar nin la yiraahdo wow wax badan aan muuqaalkan Soomaalida ka sugay muuqaalkan wax badan inta reaction bixinayay muddo 2 sano ayay afka gelisay hadda wax yar ka dhiman yahay intaas aan reaction ka bixinayay markasta waxaan ku dhigi jiray war heede meel qurux badan kaliya haraadinina the real life nolosha dhabta ah oo lagu nool yahay ilaa dadku noloshooda kulli high level maaha nolosha dhabta lagu nool yahay isku daya in muuqaaladiina aad ku soo duubtaan in heesiinan xanuunka badan ee intay gees istaagto sanbabkiiba dilaacay itaal ma hayo cidi ima biishada leedihiin meel qurux fiiri qof hadda wuxuu ku leeyahay fanaan wuxuu ku leeyahay dollar ima imaado cidna ima biisho waxaa laga yaabaa suud qurux badan inuu xiriyo ama meel qurux badan uu taagan yahay saasoo kale lama rabo waxaa loo baahan yahay muuqaalka jilaysid xanuun hadii uu ku jiro ama tabasho ama dhibaato ama faqri waxa doontaba ku heesay waxaa loo baahan yahay muuqaalka hadda aan arkayo si ku bilaabatay wiilku wuxuu sameeyay sixni ama saxan waxa uu taqaanidba uu kala qaaday
cuntuu ku tabaya cunto male waa faaro laba saxan oo cidla is dul saara micnaha eber waxa la dhaaya karsan saxanka gudihiisa eber waxa la yiraahdaa karsan cuntuu ka raadinaya saxanka waa qaaday male waxba kuma jiraan saa aragtayna aqal Soomaali ama buus waxa u taqaanidba ayuu ka soo dhex baxay bravo وارنتيس وقتigo ii samaadaan rabo ku weydiistay adduunkan aad arkayso ayna ninna noloshiisu tahay high level ninna noloshiisu ay tahay down waqtiga iyo waayaha baa ka dhiga tii ilaahay xaqiisana way qoran tahay marka wuxuu leeyahay fanaanku waqtigo ii samaada ayaan rabo ku weydiistay macnaha in ilaahay waqtiga ii qurxiyo de waa aragtaa noloshu ku jiro cunto male dunidana qofka bini aadanka markii uu soo kaco uusan wax uu cuna meel ku ogin quraac iyo qadiyo casho ayaa la dhihi karaa qofka nolosha waxbuu ka yaqaanaa nolosha oo dhammaystiran ay waliba wax ka yaqaanaa qofkaas qof aan baahi arkin nolosha waxba kama yaqaano macnaha qof aan maalin qadin amaba aan raasinin markuu soo kaco wuxuu cuni lahaa iyo wuxuu maaragtay maanta ku casheen lahaa qofkaas waxba kama yaqaano nolosha nolosha macaanteeda wallahi saalay ku jirtaa fanaanka dhididka ka baxaya madaxiisa iyo maaragtay sidoo noogu jirayo inuu mechanic yahay nolosha macaanteeda waa tan in aad u soo kacdo waxaad maalinta afka ku ridi lahayd inaad xoogaaga ku shaqeyso dhididkaagana aa cunto nolosha macaanteedaba haddii aad maqashay waa tan nolosha macaanteeda maaha in reerkaaga ay ladan yihiin ama aabbaha hanti iyo guryo u kaaga dhintay ma ogaan kartid waa la bisanay waa soconay waa qoslay waa boodbooday gaari qaali ah wadanay balse ma ogaan kartid nolosha dhabta ah dadka qaar waxay u maleeyaan gaari qurux badan iyo guri qurux badan qofkii haysto inuu nolosha macnaheeda fahamsan yahay no ninkaana nolosha macnaheeda fahamsan dhalinyaradi ag fadhiya macnaha asxaabtii ag fadhiya waa taan kuu sheegayaan ku leeyahay noloshu qofna waa dabaqad sare qofna waa dabaqad hoose hadda wuxuu fadhiyaa meel marfasha oo lagu qaylaayo dee asan waxba isla haynin oo gacantiisu marantuu meesha soo fariistay mid ag fadhiyo saaxiibkiisa u dhiibo waar yaahe duwaabka nagala kaco orodoo soo qaada mijinta واو إنما عادي ما I like muuqaalkan iyo heestaanba wuxuu yiri nimcaduna dadka qaar way uga dartaa muuqaalka intaa markuu leeyahay gabar maskiina oo ilmo yar xiran ayaa nina u kala kacsan tahay oo gaari wato intay daaqadu u istaagtay ee dawarsi weydiisatay ama inuu wax siiyo ama ay tugsatay saa u taqaanidba muraayadu ka dalacday fannaankana muxuu ka dhawaajiyey nimcadu dadka qaar way uga dartaa been maaha dadka qaar noloshan isku dul saaran waxayba ka dhigtaaba dhaandhaan markaasuu kibirsanka ka hadlaa wuxuu ismoodaaba dunida inuu isaga u sarreeyo
inuu isaga wax yaqaano keligii isaga inuu wax haysto keligii wax kasta uu rabana inuu helayo sidaa maaha haddaba dhaandhaanow sidaa maaha lacagtiiyo ku sirin noloshaana u jeedid ninka baahi soo arkay ee habeen qaday ninkaasaa nolosha macneeda yaqaana waa sidaan kuu sheegayo ninka ilaahay hantida u dhiibay ee gaariga wata gabadha maskiinada tuugsanaysay weliba ilmaha yar wadata muraayadu ka dalacday bal kan isagiiba in yar loo soo dhiibay aan waxba haysanna wuu dhiibay meesha maxaa kaaga baxay meesha waxaa kaaga baxay ama qishka meesha ku jira waxay tahay nolosha xanuunkeeda ama baahideeda inuu og yahay ninka soo maray ama markaa ku jiraba taa ogow maskiin qiimihiisa waxaa ogaada ninka noloshiisa hore xanuun yar soo maray amaba hadda ku jira ayaa wuxuu ogaadaa maskiinka aan waxba haysan qiimihiisa waa runtiis nolosha dadka qaar waxay moodaan in ay u baahan tahay guri markii la dhiso lacag badan inuu qofka haysto ama taajir uu yahay war nolosha farxadeeda waxaa si fiican u hela ee si fiican u laday seexda qofka ama labada qof ee nolosha wadaagaya subaxdina gurigooda ka foofaya waxay afkooda geliyaan ama ay ku noolaadaan labadooda u foofaya habeenkii markay yimaadaan ayagoo isku qanacsan oo faraxsan ee saliga isku seexanayaan kaa farxad badan adi waxaa laga yaabaa in adi stress ay kugu heesaba hantida aada leedahay isaa wax u kala dabiri lahayd ee hurdada kuu diidaad kaniina ku seexato asna makaanigiisa iyo xamaaligiisa soo qaadaa uu imaanaa biyo yar hadduu helo isku shubu nasiib leeyahay dhabta xaaskiisa ka badan hore u ka seexanaa micnaha labadiina iyo maa farxad haysta marka isagaa farxad haysta macnaha ninkan gaariga sitee ninkan kale maskiinka garaacaya ayaa stiil laga wadaa nimcaduna dadka qaar way uga dartaa macnaha maskiinkan uu ku tumanayo iyo waxaanoo dhan waxaan kuu sheegayo kala waayo bahaayin uu arkaaba xayawaano dadkuba dad uma maleeyaba qofka markuu halkan ka hadlaya maaragtay ee lacagta u been sheegto dadka normalka ee bini aadamka ee la mid ah xitaa uma maleeya dad واو وكهلا قيبتن aad iyo aad ugu hela clipka qaybtan wuu soo galay isagoo waxba heynin iridda markuu ka soo galay xaaskiisa ka hortay mid wajigiisa wuxuu ka muujiyay muruga ah inuu maanta waxba isla soo waayay macnaha maanta waxay maaragtay digsiga ku ridan lahaayeen inuu soo waayay uu waxba heynin ayuu wajiga xaaskiisa afaafka gurigiisa markuu hor yimid uu wajiga hoos u aadiyay maxay samaysay qashankii saarnaa bay ka jaftay waxba ma laba tirida ilaahay baa fahan iyadoo u faraxsan kan hantidiisa xisaabteeda maaragtay ee stress ku hayso ee habeenkii kaniin ku seexanaya iyo kan iyo ma farxad ku jira labadooda kana ku jira xulgaran
دي وعندك سنية وحدي قدايا تجي فرحتي وذا وقبيو وانا لدتيشا ورسم وروح لي إيها جعيلي وانا أبشا قوة عدلي ويتا عديو ترسلي لوابا عنك باوي أبائيو ويقيني قميدا الرجال إنه إلهي أمهد عليه وأروح ماشي كجرا موقال كهو موقال فرين توس أقول بنايا رون أهانتي قفك عقل لا الضمير لنا وفهمها هذا ويل كم فنان كا وقدام بنتي وحنو شكتب إلهي أمهد عليه محو أمهد عليه الدون ككله هدي ماركتي وصن وحبك هينين وهو هيستا مد مركو جرجي ماذا asagoo waxba haynin ee labadoodaba gaajoon yihiin diyaar ugu noqonaysa in gaajadiisa ay kula seexato welibana u farxaysa ka qosinaysa inuu ilaahay u mahad celiyo intuu ku huraa marka تجي فرحتي وذا وبيو وانا لدتيشا ورسم ورحلي إيها جعيلي وانا أبشا قوة عدلي ويتا عديو ترسلي لوابا عنك باوي أتاقيو ويقني ميدا أنا واحد إيقو تيقو وينقو مازا وكادي muuqaalka sheeka ku jirta macnaha hortiina ayaan reaction ugu bixinaya hore uma daawan halkan waxaan ka arkaa after 1 year muuqaalkan sidaa ka arkayseen ugu dambeyntii xaaskiisa ayuu wuxuu ku leeyahay alxamdu shukr lillah xanuun kasta iyo dhibaato kasta noloshu maaragtay ay tustay iyadoo waxaas dhan ku iloobo ka meedhay macnaha see raaliyo ugu tahay ee gaajada iyo dhibka iyo wax kasta ay ula fahmaysa dunidan ha u maleynin markii lagu leeyahay Soomaalida been way sheegaan laakiin been maahan waa run maxaa yeelay waxay yiraahdaan Soomaalida nin ka wanaagsan waxay yiraahdaan nin ka naag wanaagsan wiliga gaari meesha hadda been maaha haddii 90,000 oo bilyan oo dollar lagu dhiibo oo mid ku cunayso qumayana dhinacna uu istaajiyo wallahi raaxa ku cunin balse haddii baahi aad tahay oo subaxdii u kala haysid xoogaaga iyo muruqaaga inaad soo shiisho oo waxaad soo heshaan cunto tan oo kalena guriga lagu dhigo abid farxada ku jiray macnaha buushkaas dhaxanta ay ka cilneen adoo ku jira ayaa farxad ku jiray hadda halkan waxaa noogu soo qorantay after 1 year hal sano kadib aan aragna maxaa soo socda وكادي والله تاجري إيش وبيع وكيالك نعلا شيطان كيال جعلك إسكو فرح سنة تاجري بقى يجي وارياها يقدر الله هاستي سندك يا موقالك سندك هاستو waxay u qalantaa هاستي سندك يا موقالك سندك la siiyo waa hees fariin buuxda gudbinaysa ee nolosha ku saabsan fariin buuxda oo nolosha ku saabsan ayay gudbinaysa heestan qalbiyo fara badan oo jabsanaa way dhisay macnaha dad fara badan oo noloshooda kalsooni ku qabin ayay wax u noqonaysaa dhiirigelin waa hees qisadeeda iyo dhiirigelinteeda ba xambaarsan waxa ka heesa fiiri gabadhii ugu samreysay baahida maanta markay u kala kacdo ay hanti iyo lacag helaan maxaa u maleynay de kaba sii daranba shalay waxay ugu samreysay inuu markuu cashada iyo qadada soo waayo saxanko cilaa ay baahi kula seexato ayadoo qoslaysa maanta markuu ilaahay wax u dhiibay oo furo gaari gacanta ka saarayna kaba sii daranba dhoola cadeyntii waa sii kordheelay ilaahay u taan qala nasiir rabbiyo anaga sii geeya xita
after 2 year haddana after 1 year buushkiyaa balakoon isku bedelay after 1 year gurigii buushka ahaa ee lagu jiray balakoon isku bedelay ayaa wuxuu isu bedelay balakoon iyo daar qurux badan kaala iska arag after 2 year maxaa soo socda shirkadda gawaaridu galooyaa ninka gaari cusub waay kawaran he waa ninkaanoo shirkad dhan oo gawaarida lagu iibinaya ay waqtiga iyo waayaha iyo noloshaba ay gacanta u soo gelisay buushkina ay ka soo saartay iyo kii shalay gaariga watay ee masaakiinta daaqada ka xiranaya ka dalacanayay ninkaana dilayay waa kana maanta shaaftow soo doontay waxna daara waxna kalageeya ayna waxna kiba laga weecisa wayno ku weydiistay nolol maafiya nolol wanaagii nolol nasri iyo reereen watawaan rabbiyuu ku weydiistay farxad waatiyo nacala shaydaan ku yaal waryaa ninkan rageed waay ogow wiligaa nolosha shalay markaa u baahneed inaad soo kacdo ama dhulka aad taalay dadka kugu jeesjeesa ee ku dareensiiyey inaad waxba yahay tahay markay kuu kala kacdo dadkaasaa ka aarsan sida ninkaa uu sameeyey madaxa intaa u salaaxdo waxa uu qaban karti u qabo nin rageed bal ninkan fiiri yarkan kale heesta noo matalaya shaqaa la siiyey shalayna wuu haraantinayay oo biyuu ku shubayay maantana waxaa la yidhi qabso shaqada maantana isagoo shaqaalaha ee nolosha soo xumaysay ayuu ninkan u yimid welcome baa la yidhi baraada shaqayso ogow nolosha way wajihi badan tahay haddaa u malaynaysid mar kasta inaad dabaqo sare saarnaanaysid ogow isla berito ayay wax kasta intay isu bedelaan aada dhulka imaanay laba gacanaan saaray duubista heesta fanaanka abwaanka laxamiistaha muusikiistaha kuwii jilayay mar kale waxay igu celisaa wiilka iyo gabadha fanaanka iyo gabadha la jilaysa inaba caadi maaha dareen dhaba ay geliyeen war ma heesa reaction ka bixinayay mise filin musalsal ah oo nolosha dhabta ka sheekeynaya waxaanu kala hees la yidhaahdaa aawe kabaley aawe heesta sanadkan siiyey aniga ama u diida ama daaya waa siikio idinla meel kasta adduunka ka joogtaan waxaa inoo balanaa muuqaalka xiga